maxay farqiga u dhaxeeya mar waxaad maqlaysaa jin marna waxaad maqlaysaa shaytaan marna waxaa la odhanayaa ibliis marna waxaa la odhanayaa cifriid iyo asmaa badanoo aan soo wado maxay kala yihiin jin iyo shaytaan iyo cifriid iyo ibliis waxaan laga hadlay magacyadan qaarkoodna qur-aankuba sheegay waqaala cifriitu min aljin ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamik shaytaankana wuu isticmaalay qur-aanku ereyga jinkana wuu isticmaalay marka horta jinow maxaa tahay kelmadda jin af carabi ahaan waxay ka timaadaabaa la yidhaahdaa ficilka janna janna waa jiim iyo nuun shidan asalkeedu halkaasay ka timaadaa kelmaddu waa maxay markaa janna janno macnaheedu waxa weeye ikhtafaa wastatara wuu qarsoomay oo waa la arki waayey ayaa ereyga janna ereyga janna ficilkaas jinka oo keliya qur-aanku uma isticmaaline meelo kale iyo mawaadiic kalena wuu geliyey oo jinka isaga waxaa jin loo yidhi bay yidhahdaan culimmada tafsiirku liijtinaanihi wa ikhtifaa'ihi qarsoonida uu inaga qarsoon yahay ee aanaan arkayn kelimadda janna siyaabo badan buu qur-aanku isticmaalayoo waalida lafteeda ereygaa janna ayaa laga soo dhalaaliyey aftaraa cala allaahi kadiban an bihi jinna jinna markaa ninka waalan waxaa la yidhaha majnuunna waxaa loo yidhi baa la yidhi caqligiisii baa qarsoomay caqligiisii baan shaqaynaynin lidaalik baa waxaa loo yidhaahdaa majnuun waxaa kaloo qur-aanku isticmaalay kelmadda janna wuxuu u adeegsaday ilmaha uurjiifka ah kelmaddaa janna ayaa laga soo dhimbiil qaatay waid antum ajinnatun fii butuuni ummahaatikum waid antum ajinnatun fii butuuni ummahaatikum marka jiniin baa laydhaa jiniinkuna waxaa loogu bixiyey wuxuu ku qarsoon yahay uurka hooyada haddaba makhluuqan jinka la yidhaahdo waxaa ereygan qarsoonida ah loogu isticmaalay indhaheennaan arkayn isaguse wayna arkaa makhluuqa jinku markuu dabeecadiisa caadiga a leeyahay isagu wayna arkaa innaguse ma aragno bidaliili qowli illaahi tabaaraka wa tacaala innahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xaysu laa tarawnahum innahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xaysu laa tarawnahum laba jeerunbaa qofka bini aadmigiihi uu jinka arki karaa jin isbedelay oo suurad kala yeeshay oo dayday ah oo xuduuddii ka soo gudbay oo qofka bini aadmiga ah inuu daandaansado raba marka isagoo oo suuraddiisii iska bedelay waa la arki karaa saynu ka warrami doonno mar kalena waa la arki karaayo marka qofku isagu uu daandaansado oo cilmigan ruuxaaniga la yidhaahdo ee arwaaxda lagula xidhiidho ruuxaaniguna waa caalamuljinka unbay u jeedaane waxaa jira markaa erayo iyo qoraallo iyo afcaal qofku haddii uu sameeyo xijaabkan inoo dhexeeya uu furmayo qofkana markaa wuxuu gelayaa albaab aan weligii ka furmaynin qofku hadduu baab kaa galo baab alitisaal alarwaax hadduu la itisaalo wuu ku xidhmaa albaabkaasi dib dambaysana ugama furmo aakhirkana iyagunbaa dila mar hadduu caalamkaa la itisaalo aakhirka iyagunbaa dila labada dariiqo mid unbuu bini aadmigu ku arki karaa jinka ilaahayse wuxuu ugu talagalay xaqiiqa ahaan inaan innaga iyo jinka wax aragtay isagu inuu ina arko innaguse aynaan arkin lidaalik ayaa waxaa loogu bixiyey jin waxaana iska soo hor jeedaan xaqiiqada insiga insi haddii la yidhaahdo min aanasa bay ka timi aanasana waxa weeye wuu muuqday aanasa wuu muuqday bay ka dhigan tahay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala waa ka qur-aankiisa ku yidhi markuu ka warramayey nebiyullaahi muusa innii aanastu naaran
إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو جدوة من النار. marka insi macnaheedu waxa weeye kii muuqday, jinnina macnihiisu waxa weeye kii qarsoona. jinnina macnihiisu waa kii qarsoona. horta kelmaddan jin waa makhluuqa wuxuu ka abuuran yahay iyo sida loo abuuray iyo siduu u nool yahay waan ka warrami doonaa. laakiin kelmadda jin waa makhluuqa inagu aynaan arkayn ee isagu ina arkay. aynu u galno markaa kelmadda shaytaan. shaytaan waa erey loo isticmaalo qur'aan ahaan iyo xadiidba waan daliilka keeni doonaaye shay kasta ama makhluuq kasta oo madax adag oo macangaga ayaa horta shaytaan la yidhaah. oo xayawaanka marka uu aad iyo aad u madax adag yahay shaytaan baa la odhanayaa. bini aadmigu qaar madax adaga hadday ku jiraan shaytaan baa la odhanayaa. makhluuqaadka jinka qaar madax adaga hadday ku jiraan shaytaan baa la odhanayaa. marka ereygani waa erey jaamic ah oo wax allaaliyo wixii madax adag oo dhan ay soo hoos galaan. oo mar iyadoo qur'aanka kariimka ah shaytaan loo isticmaalayo ibliis laftiisa, makhluuqa ibliiska la yidhaahdo, isagoo ereyga shaytaan loo isticmaalayo qur'aanku ku soo arooray. oo wuxuu ilaahay qur'aankiisa ku yidhi faazallahuma ashaytaanu canha faأkhrajahumaa mima kaanaa fiih. markaa shaytaan halkaa waxay ugu jirtaa waa ibliis laf ahaantiisi. faazallahuma ashaytaanu. waxaa kaloo loo isticmaalaa insaanka iyo jinka hadba kii madax adag labadooda waxaa la yidhaahdaa shaytaan baa la yidhaahdaa. bidaliili qowlihi tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan shayaaiina alinsi waljinni. shayaaiina alinsi waljinni. marka bini aadmiga laftiisu inuu shaytaan leeyahay ayaynu halkaa ka fahamnay. mar kale rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam xadiid wuxuu ka warramay saxaabiga la yidhaha abaadar ayuu nebigu la dardaarmay calayhi salaatu wasalaam. wuxuu ku yidhi tacawad billaahi min ashaytaani alinsi waaljinni. ilaahay ka magan gal shaytaan alinsiga iyo shaytaan aljinkaba. markaasaa waxaa nebiga ku idhi aw lilinsaani shaytaanun shayaatiin. oo bini aadmigan caadigeen aqaano maqaar shayaatiina baa jira. qaala rasuulu llah sal alla alay slam nacam haayo bini aadmigan qaar shayaatiina baa ku jira. shaytaanna waa wixii madax adag oo dhan baa la yidhaahdaa oo garmaqaato ah oo macangaga baa shaytaan la yidhaahdaa. waxaa kaloo cabdillaahi ibnu saamit saxaabiga la yidhaahdo ayaa wuxuu ka warinayaa abidar laftiisa oo nebigu uu la hadlayo uu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ruuxu markuu tukanayo salaadiisa wuxuu kula gabbado oo sutro ah hays hordhigo. haddii aanu sidaa yeelin hadday soo hormaraan ximaar ama kilaabta madmadow oo kale salaadiisu iyo dumarku hadday soo hormaraan salaadiisu way buraysaa. cabdillaahi ibnu saamit oo ka dhegaysanaya saxaabiga abidar xadiidkan ayaa wuxuu yidhi oo aydu badan maxaa aygan madow gaar looga dhigay salaadda uu u burinayaa haddii qofkii bilaa sitaaradda aydu soo hormaro. markaasaa wuxuu yidhi abudar nafsa su'aal ayaa nebiga weydiiyey oo aan ku yidhi nebi allow maxaa looga soocay aygan madow ayada kale. waxaanu noogu jawaabay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam alkalbu alaswadu shaytaan. ayga madow waa shaytaan, macnaha waa ayda nooca madaxa adag buu ka mid yahay. marka shaytaanku jinkii ma aha ibliisna ma ahan ee waxaa laga wadaa waa xayawaanaadka la yidhaahdo ayda hadduu mid macangagii ku jiro waa ka madow weeyaan. kaa madow baa ugu hawl badan oo ugu hawl yacni inta badanna waan ka warrami doonaayo xayawaanada uu shaytaanku isku soo shabaho ama isu soo ekaysiiyo. bisada madow iyo ayga madow iyo bay u badan yihiin. waxaa la soo wariyey imaam atabari iyo kayrkiisba markay tafsiirka culimmada tafsiirka waxay yidhaahdeen ina min aljinni shayaaiinun wa min alinsi shayaaiinun wa ina shayطaana aljinni idaa acyaahu lmu'minu dahaba ilaa mutamaridin min alinsi wahuwa shayطaanu faaqraahu
فأغراه بالمؤمن ليعينه عليه. وإمام طبري تفسير كيسا وحو كسا قرين ولماذا تفسير كوحي راهدين جن كان قيب شياطينا كجرت إنسي كان قيب شياطينا كجرت مركا جنكو مركو أتاقوا يا مؤمنك إنو أنبيو وحو يسكد يا إنو أسو هيشدو أما أسو قرقارسدو مد شيطانو بن آدمية شيطان الإنسي أيو أسو قرقارسدا سئو وضد وقليحيو. إمام قرطبي لفهانتي تفسير كيس مركو كور رمي يوحو تلمامي قول أولي هي إمام مالك بن دينار أو تابعية قول أولي هي بسورين إياه ووحو الإمام مالك بن دينار شياطين الإنس تغلب شياطين الجن إن شياطين الإنس أشد علي من شياطين الجن لأني إذا تعوذت بالله شيطان الجن ذهب عني وشياطين الإنس يجيئون فيجروني إلى المعاصي عيانا. وحولي إمام كاس شيطانك جنك شيطانك إنسك أيا كشر بدن أو كربات بدن شيطانك جنك سببتو يتهي شيطانك جنك مركز إلهي أتك مغنقشو وكاتشوك سنية لكن شيطان الإنس حتى أعوذ بالله كاقتك معي شيطان الإنس وأنا تكنت هذه جير إن بنا آدم حمحمي أي كالتأثير بطان وكر هذين بطان شيطان كجنك مركا شياطينتو وحويان وحي مدح أدق أوردن مركا هذا ويدين كلا عداتي جن إيا شيطان وحي كليهين جن ومخلوق مدح بنان wuxuu ka abuuray aan ka warrami doono sidoo uu nool yahay aan ka sheekayn doono wuxuu cunaa aan ka sheekayn doono ma isguursadaayo ma tarma aan ka sheekayn doono waxaas waa sheekay noo taal laakiin hadda waxaan rabaa inaan idin kala saaro maxay kala yihiin jin iyo shaytaan. jinku waa makhluuq madax bannaan oo ilaahay abuuray oo ilaahay uu ka abuuray naar waa ko shaytaankuna waxa weeye wax allaaliya wixii madax adag oo dhan ayaa la yiraahdaa shaytaan.